Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waa mar kale iyo programmadeeni waxbarashada gaar ahaan scholarship-yada aan kusoo gudbinayno qaybta YouTube-ka isla markaana aan ugu faa'iideynayno dhalinta Soomaaliyeed ee jecel waxbarashada. Maanta programkeeni waxaa ku marti ah mid ka mid ah ardayda role model-ka ah isla markaana kusoo guuleystay scholarship-yada waddanka Talyaaniga gaar ahaan scholarship-kii aan shalay soo gelinay qaybta YouTube-keena Unicorn Scholarship kaas oo sanadkan ay ka faa'iideysan doonaan arday kor u dhaafayso 67 arday. Mr. Dair Solob ku soo dhawow barnaamijkeena scholarship-yada. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا الأبشر وانكو السلام يا أديك يا دمان دليرة كوجو حرن يبرشوي تكوجو حرن دنايسو أرمها وحبرشة جارهان وحبرشوين كا ماستر كي دكريجا أما PhD وضمدا ريك البيت أيوه الريان وضمدا ريك يورو أدبادو ما حسنت هاي برامج كا أيدا وان حسيا وان الصعدة رونهانتي وحن كاجا مد علينا برامج كاسات قيمها بدن اسكو حيل كانتي أدبان كاجا مد علينا aniga dhalinyarada kale role model ku ah barnaamijyadan laga yaabo inay fursad hadda ka hor heleen dhalinyarada Soomaaliyeed mas'uuliyadaas iyo yani isxilqaanka noocaas oo kala dareysan laakiin duruufihii waayo ay saamix waayeen adigu hawsha isku xilqaanta saaxiib aad baad ugu mahadsan tahay waana kaaga mahad celinaynaa aan guda galno programkeena Unicorn Scholarship maadaama aad tahay mid ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee nasiibka u helay sanadihii la soo dhaafay ku guuleystay Unicorn Scholarship wax yar hadda tafaasiil dheeraad ah naga siiso waad mahadsantahay labaad aniga magacayga waxa weyn Daahir Sulub Xakaar waxaan 2021 ku guuleystay barnaamijkii waxbarashada ee Unicorn 3 oo ah barnaamijka ugu muhiimsan ee filayo in topic-een maanta uu yahay barnaamijkan Unicorn 2021 wuxuu ahaa wajigiisa saddexaad halka dawladda Talyaaniga iyo UNHCR iyo patronariyada kale barnaamijka qaybta ka ugu horeeyaan jaamacadaha Talyaaniga ay shaaciyeen Unicorn 7 ama qaybtiisa toddobaad barnaamijkan wuxuu soo bilowday 2019 wuxuuna ku bilowday 5 arday oo ka soo jeeda waddanka Eritrea 2020 waa la ballaariyay wuxuu isku bedelay barnaamij jaamacado fara badan ay ka soo qayb galeen oo Talyaani oo 20 iyo 5 arday ayaa fursadaas ayaa ka faa'iideystay 2021 oo ahaa Unicorn 3 oo ahaa dadkii ka fursadda nasiib u helayna waxaan in 45 arday oo 30 kamid ay ahayn arday Eritreana 10 kamid ay ahayn Suudaan 5 kamid aan ahayn Soomaali marka waa barnaamij ilaa iyo wixii inta ka dambeeyay laarin hayay oo qiyaasay hadda Unicorn 7 inuu yahay lambarkii ugu badnaa ee la shaaciyay ما شاء الله aad baad u mahadsantahay sida wanaagsan aad u soo koobtay daahirow su'aasha xigta sidee looga faa'iideysan karaa programkan maadaama ay jiraan dhalin Soomaaliyeed oo badan oo doonaysa inay ka faa'iideystaan programkan istabyada mise nidaamyada ardayga looga baahan yahay inuu maro mise qaabka loo apply gareyn karo oo ugu wanaagsan programkani ay tahay in ardayga Soomaaliyeed uu soo apply gareeyo aad baad u mahadsan tahay su'aashadaas barnaamijkan si guud dhalinyarada waxay uga faa'iideysan karaan horta marka koowaad barnaamijkan waa barnaamij fair competition ah masraxa tartanka ayaad ku biiraysaa qaybo wajiyo fara badan oo assessment oo qiimeyn buu leeyahay wajiga koowaad waa in maxaan ku dhahaayay documentigaada ama applicationkaada aad portalka jaamacadaha ku xaraysato halkaas jaamacadu ay qiimeeyaan markay qiimeeyaan ka bacdi lagugu yeedho feeska labaad oo ama interviewga su'aalaha lagu weydiinayo waxay noqon karaan su'aalo subject matter ah oo koorsada markaas aad baranayso iyo koorsada aad soo baratay degree-gaadi iyo masterkaadi dabcan field related area inay yihiin waa advantage anyhow muhiimaddu waxay tahay koorsada markaas iyada masterkaad u apply garanayso su'aalo ku saabsan iyo waxa kale lagu weydiin doonaa su'aalo la xiriiro in la xaqiijiyo motivationkaada iyo interestigaada siday kaaga go'antay barnaamijka ayada ah diyaar ugu tahay fursadda inaad uga faa'iideysato sababtoo waxay raadinayaan inaad tahay the right person qofkii waxaan mudnaa inaad tahay in kale waxaa abshir xusid mudan barnaamijkan hadda waxaa ka soo qaybgalaya uu ka bedelan yahay wajiyadii hore waxaa ka soo qaybgalaya dhammaan wadamada Afrika
iyo oo intooda badan fursaddan kasoo qaybgalayo iyo Asia. waad ogtiin wadamo badan oo Asia oo Hindi ka mid taha lagu soo daray. marka competitionku ama tartanku hadda aad buu u adag yahay, waa xasaasi. marka dhalinyarada Soomaaliyeed ee barnaamijkan ayada ah diyaarka u ah, marka koowaad waa inay ku xisaabtamaan in competitionka noocaas oo kale ah ay u diyaar garoobaan. oo qaabkee ugu diyaar garoobahan? kow, documentationka wejiga ugu horreeya iska hagaajinayaan. say iskaga hagaajinayaan? documentationku qaybo fara badan buu leeyahay. intaada portalka jaamacadda online-ka aadan aadin, waa inaad ku fikirtaa in documentiga aad sii diyaarsato. documentiga aad sii diyaarsato maxaa ka mid ah? academic recordkaadi. academic recordkaadi maxaa laga wadaa? shahaadadii diblomada ee bachelorka iyo transcriptigii, shahaadadii dugsiga sare. haddii aad haysato documenti kaloo ayagana support garaynaya, waa academic record. maxaa kaloo lagaa rabaa? waxaa lagaa rabaa experience, shaqooyin aad soo qabatay, contribution aad kasoo qayb qaadatay, volunteer activity aad kasoo qayb qaadatay, training aad kasoo qayb qaadatay. documentiga asagana already waa inaad ayagana file scan kasoo qaadaad ayagana file kugu jiraan. okay, maxaa ku hadhay? waa inaad haysataa strong motivation letter, warqad motivation ah. warqadda motivationka ah decisionka qaybaha ugu muhiim bay ka qaadataa. maasha allah. halkaas aan kaa dhex galo. motivation lettertan arday badan oo scholarshipyada youtube kasoo daawatay ba isoo weydiiyey. marka kaalin nooca ayaa ka qaadataa motivation letter codsiga jaamacadaha mise scholarshipyada? aad baad u mahadsantay. decisionka qaybaha ugu muhiim bay ka qaadanaysaa. waayo intaasoo qof aad soo wada apply garayseen, maybe inaad shahaadooyinkii aad ka sinaataan, maybe inaad experience dabcan soo wada shaqayseen. halka la idinku kala reebaya waxa weeyaan waa barnaamijka ku saabsan motivationkaada. motivationkaada marka dhalinyarada Soomaaliyeed qarsh baan siinaya. kow, waa inay muujiyaan yani barnaamij logic ah, macquul ah. say u muujinayaan barnaamij logic ah? waxay ka hadlayaan first of all career goalkooda, yani waxa ay rabaan inay bartaan very clearly, jumlad kooban bay ku qorayaan. waxay raacinayaan waxay soo barteen siduu ugu tacalluqa waxaas ay codsanayaan. waxay raacinayaan inay yihiin qof dhalinyaro ah oo future goalkiisu uu cad yahay. documentiga motivation letterka yaad ku cadaynaysaa. waxaad raacinaysaa inaad tahay qof aan awoodin yoolkiisa waxbarasho inuu ka meel gaadho, maadaama aad tahay qof qaxootiya, kaam ku jiro, fursado dhaqaale iyo faamilku caawiya aadan haysan. pointigaas aad buu muhiim u yahay. marka waxaad muujinaysaa dareen aad ku abuuraysaa in barnaamijkan ayada aad diyaar u tahay inaad ka faa'iidaysato, balse aad haysato challenge ama limitationkaas. halkaasaad ku cadaynaysaa. waan kasoo gudubnay. waxaad kalood muujinaysaa futureka contributionka aad rabto iyo ujeedada aad barnaamijkan uga dan leed. marka maxaad samaynaysaa? waxaad very clearly si yani waadaxa u cadaynaysaa post graduate-kaada, waxbarashada ka bacdi waxa kuu qorshaysan. halkaas waxaad ku indicate garaynaysaa in aad diyaar u tahay fursadaas waddanka ku siiyey, aad social integrationkiisa iyo isdhexgalkiisa bulsho ugu horreeya inaad luuqadiisa baranayso, fursadooyinkii iyo opportunity aad ka faa'iidaysanayso, waa ima aad waddankaadii contributionka dib ugu soo celinayso. very clear waa inay ku aadaan. still motivation letterku waa si guud waa intaas, laakiin waa sii xoojin kartaa. maxaad kaloo ku xoojin kartaa? messagekaada ama luuqadda aad qorayso waa inay noqotaa very clear. waa inaysan noqonin emotion, no, emotion muhiim ah, logic waa inay noqotaa. okay, intaas ma isla afgaran. waxaa marka intaas dheer inaad raaciso identificationkaadi, qaxooti inaad tahay. shuruudahay ka mid tahay inaad intaas documenta markaad diyaarsato already scan uu ku yahay, yaad waxaad kalood ku darsaysaa cv-gaadi. cv-gaadi documentigii aad soo qoratay ee halkan kuu yaalay ee scanka kasoo qaatay iyo documentigu waa inay noqdaan kuwo isleh. cv-gaadi iyo documentigaadi already clear waa inay saa u fadhiyo, barnaamijkaada waa inuu saa u fadhiyo documentationka. okay, markaas decisionka qolyaha ayaga qaadanayo, laakiin haddaad intaa iska xaqiijiso haddii aan u gudubno su-aasheena xigta, qeybta koowaad waxaan ognahay UNICORE program in laba qeybood loo qeybiyo.
qaybta documentationka hadda aan ka soo hadalnay iyo qaybta labaad ee interviewga ka waran qaybta interviewga haddii aan siiso hogaa yar tafaasiil dheeraad aad baad u mahadsanta qaybta interviewga markaad timaadaan qaybtaas waa marka qaybta ugu muhiimsan qaybtaas marka su-aalaha la weydiinayo concept baad uga jawaabaysaa waad isku dejinaysaa already waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah inaad isku daydo jaamacadda ayada ah ee ku qaadanayso inaad areadeeda iyo dhulkay ku taallo iyo macluumaad yar aad study ku samayso research ku samayso already su-aala ka imaanayo waayo jaamacaddanada aad u dooratay meesha ku imaanayso barnaamijkan unicorn inaad idea ka haysato maxaad u doorataa ku imaanayso specific specializationka ama koorsada aad codsanayso su-aal baa ka imaanayso marka waa inaad ayada naftarkeeda aad kasii diyaar garowdaa inaad jawaabahaas ka jawaabto intaa maxaa ku dheer barnaamijkan unicornada idin sheegay qish baa idin siinay barnaamijkan unicornadu mustaqbalka qofkan waxaa la rabaa aniga inuu asset u noqdo marka haddii fursad aan u helo waddankayga dabcan dambi kama gelin laakiin haddaan fursad u helo waxaan ka faa'iidaysanayaa barnaamijkayga waxbarashadaan uga faa'iidaysankaygana iyo horumarkayga goolkayga waxaan ka samaynayaa waddanka asaga aad odhanaysaa okay intaas markay saas iskugu interviewga aad iskaga dhisto calafka aad qaadaysaa wixii kale waa languageka luuqadda waa muhiim sababtoo ah scholarshipyada intooda badan luuqadaha waxay ka yihiin requirement ama criteria laakiin unicornadu interviewga assessmentiga lagu qiimeeya languageka ama language proficiency halkaas lagu qiimeeya therefore marka luuqaddu naftirkeedu halkaas yaad maxaan ku dhahay ay muhiim u tahay maxaa aad baad u mahadsan tahay sida wanaagsan aad u sharaxday systemka loo maro codsiga scholarshipyada si guud gaar ahaan unicorn program ee waddanka talyaaniga daahir haddaan ku siiyo fursadda ugu dambeysa barnaamijkeenan maxaa tale iyo tusaale ah aad usoo jeedin lahayd dhalinta soomaaliyeed eena daawanayo aad baad u mahadsan tahay yarada soomaalida ah hal arrin inay ku baraarugaan dhalinyaradu waxaa laga yaabaa inaad iskugu taxluujiyaan ama waqti ay geliyaan ama energy badan ay geliyaan ama darasaad badan iyo research badan ay ku sameeyaan siday waddamada reer galbeedka ku imaadi lahayn wadiiqooyinka marka u fudud ee ayagu garanayaan ah wadiiqooyin iska caadi ah oo in qaabab kale lagu soo baxo laakiin runtaan idiin sheegaya jaamacadaha reer yurub oo dhan generationka waddamadan maadaama young ageka uu yar yahay dad bay u baahan yihiin kalixa skillska amba technically farsamo ahaan inaad awoodi karto inaad jaamacadaha research ku samayso aad portalkooda baadho shuruudaha aad akhrisato dokumentigaada halkaas ku upload garayso waa intaasun wixii intaa dheer waa inaad dokumentigii haddii barnaamijka unicorn aan ka baxno kale waxbarasho kale aad raadsan karo waxbarasho kale iyo howlo kale scholarship kale aad codsanayso kale passaportna waa inaad haysataa because waa muhiim laakiin barnaamijka unicorn booskiisa waxaad ku upload garanaysaa